السلام عليكم saaxiib yaal kusoo dhawaada 5 daqiiqo halkani waa 5 daqiiqo waxaan soo gelinaa muuqaalo xiiso leh haddii ay tahay markii ugu horeysa ka soo gaartay fadlan subscribe saar si kuu soo garaan muuqaaladan oo ah kuwa xiiso badan inta badan ku saabsan filimka habboon iyo weliba arrimo kaleeto oo xiiso leh muuqaalka maanta waxa aan diiradda ku saaraynaa ama aynu kaga hadli doonaa lacag intee leeg ayay astaan tv ka samaysay musalsalka aadka loo hadalhayo waa kan loogu magac daray habboone haddaba musalsalkani waxa uu hawada ku jiraa muddo ku siman 1 bil iyo barar waxaana la soo gelinayaa barta ay shirkaddu ku leedahay youtube-ka haddaba si aynu u ogaano lacagta ay sameeyaan waxaan u baahannahay in aynu dhowr meelood ka fiirino marka hore waxaan u baahannahay inaynu ogaano qaabkee ama sidee ayaa muuqaalkan loo farsameeyay ama yacni qaabkee ayaa lacag looga sameeyey youtube-ka laba ayay noqon kartaa midda koowaad waxa weeye waa lacagta caadiga youtube-ka taasi oo ah kunkii qofba in lagugu dhifanayo lacag u dhaxaysa 0.5 ilaa $3 taa marka aynu raacno youtube waxa ay lacag ka sameeyeen marka aynu isu geyno guud ahaanba 17 xalqadood u dambeeyay mid walba waxa ay gaaraysay ilaa 400 oo kun oo views marka aynu xisaabino lacagta ay sameeyeen waxa ay noqonaysaa haddaba saaxiibayaal astaan iminka waxa ay soo deysay ilaa xalqado lagu qiyaasay inay yihiin 17 xalqadood ugu yaraan xalqad kasta waxa daawatay ilaa 500 oo kun oo qof taasi oo u dhigmata in beri horeba ay astaan samaysay lacag qiimaheedu uu yahay ilaa $15,000 ay ka samaysay youtube-ka haddii ay jiraan lacago kaleeto ama shirkado ay xayeysiin u samaysay amaba sponsorship waxa la yidhaahdo laga yaabo in lacagtaasi ay sare u dhaafayso $30,000 haddaba maadaama ay arrintani tahay arrin cusub isla markaasina uu filimku yahay filim dadku aad u xiiseynayaan markii ugu horeysana ay tahay shirkadda astaan ay muuqaal ama filim noocaana soo saartay una durmadiiba u muuqdo inuu guuleystay dakhligii ugu badnaa ee filim Soomaali ka soo xirotana ay ka soo xireysay sidaas darteed waxaa macquul ah in haddii mustaqbalka ay soo daayaan muuqaalo kaleeto ama filmaan kaleeto laga yaabo inay ka samayn karaan lacago aad u fara badan maadaama dadku ay u muuqdaan kuwa xiiseynaya sidoo kaleeto tani waxa ay mafur u tahay in filimada Soomaalidu ay noqdaan kuwa wax laga faa'iido dadka filimada sameeya ay noqdaan in ay shaqadan ka dhigtaan mid joogto ah aysan noqon mid ay hal mar sameeyaan ay balse noqoto shaqo professional ah isla markaasina filmaantan lagu soo bandhigo sinimooyinka iyo weliba goobaha kaleeto filimada lagu daawado sida youtube-ka saaxiib haddaad doonaysaan muuqaaladan iyo kuwo kaleeto xiiso leh oo la xiriira arrimahan halkan subscribe saar si ku soo gaaraan mahadsanidin